ciyaartan lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Miraha Waare ee magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa ahayd mid xiiso badan oo ahayd ciyaar finaal ah isla markaasna ciyaarta kama dambayska ee koobka gobolada Puntland oo koobkii shanaad isla markaasna dhawaanahan ka socday garoonka Miraha Waare ciyaarta u dhaxaysa labada kooxood ee ka kala socday gobolka Bari iyo gobolka Sool oo ahayd mid xiiso badan kana soo qayb galeen kumanandada ayaa waxa soo buuxdaafiyay garoonka dadweynaha fara badan waxaana goobjoog ka ah mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socda dawladda Puntland maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada iyo waliba marti sharaf kale oo ka soo socdaalay wadamada Mareykanka iyo qaaradda Yurub labada kooxood oo ah labadii kooxood isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta ah ee finaalka isla markaasna gobolka Bari iyo Sool ka kala socday ayaa waxa ay ka soo baxeen semifinaalihii isugu soo baxeen gobolka Bari gobolka Sool gobolka Mudug iyo gobolka Sanaag waxaana ciyaartaana oo ahayd mid xiiso badan ku bilaabatay dadar xoogan oo muuqday in labada kooxoodba la soo balamay qaybtii hore ciyaarta ayaa gobolka Bari waxa ay keensadeen gool kaas oo ka naxsaday taageerayaasha gobolka Sool kuwaas oo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayeen kooxdana ku dhiirigelinayeen inkastoo goolkaas oo ahaa mid aad u xoogan isla markaasna bedelay weerarka iyo habkii ay u socotay ciyaarta ayaa gobolka Sool dadaal waxay u galeen in goolkaas ay keensadaan balse uma aysan suurto gelin 45 daqiiqo ee qaybtii hore ciyaarta ayaa ku soo ilaatay hal iyo eber oo ay hogaanka ku hayso gobolka Bari ciyaartoyda labada dhinac oo ah kuwa aad ugu taxadirayay inay qaataan calaamada ganaaxa sida calaamada jaalaha iyo roosaha ayaa waxa ay kaarka jaalaha laga siiyay min laba ciyaartoy oo kamid ah hase ahaatee markii dib mar kale la isugu soo laabtay ayaa gobolka Sool waxay dadaal u galeen inay keensadaan goolka lagu yeeshay inkastoo goolkaasi inta ay ku guda jireen haddana gool kale ay gobolka Bari ay keeneen waxaana arintaasi ay keentay in ciyaartoyda gobolka Sool ay wax ka bedelaan habkii ciyaarta ay ula ciyaarayeen gobolka Bari waxaana goolkaasi labaad uu yimid kadib markii kubad qalad ciyaartoy kamid ah gobolka Sool oo kula galay ciyaartoy gobolka Bari dabadeedna Bilison loo dhigay uu soo tafo goolayaha gobolka Sool isla markaasna uu ku celiyay mid kamid ah ciyaartoyda gobolka Bari waxyarkii dib ayaa weerar ay qaadeen gobolka Sool waxa ay keeneen gool walow goolkaasi uu dida garsooraha ciyaarta dhexaadinayay wuxuuna garsooruhu sheegay in goolkaasi uusan ahayn gool oo ku dhacay birta dabadeedna xariiqinta dhexdeeda uu ku dhacay taana waxa ay ka cadhiisay ciyaartoyda gobolka Sool oo garoonka kaga baxay xanaaq ciyaartii oo socota waxayna ku tilmaameen arintaasi mid cadaalad darro ah sida iyagu ay sheegeen guddiga qabanqaabada ee koobka ayaa ku amray garsoorihii ciyaarta in muddo 15 daqiiqo la sugo balse nasiib darro ma aysan ku soo laaban hase ahaatee garsoorihii ayaa siiriga ku dhuftay waxaana guusha la siiyay gobolka Bari oo koobka sidaas ku qaaday isla markaasna ku qaaday 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxdani ka socota gobolka Bari Sool hore ay ula soo ciyaartay hase ahaatee feeska hore ciyaarta ayaa gobolka Sool wuxuu kaga awood badiyay gobolka Bari 1-0 kadib markii gruubka ay soo wada galeen gobolka Bari Sool Nugaal iyo waliba gobolka Highland kooxdani ka socotay gobolka Sool oo 4 kulan guul kala tagtay garoonka isla markaasna aan dhinaceeda dhulka la dhigin ayaa carag kala baxday garoonka waxaana garoonku ahaa mid ammaankiisa ay aad u adkeynayeen ciidamada booliiska kuwaas oo sugayay isla markaasna la socday dhaqaaqa dadweynaha inta ciyaarta socotay way inta badan u ahaa ammaanka mid aad loo adkeeyay inta ciyaarta socotay way inta badan u ahaa ammaanka mid aad loo adkeeyay markii ciyaarta dhamaatay kadib ayaa halka waxa ka bilowday xafladii koobka lagu guddoonsiinayay kooxihii ka kala guuleystay kaalimadaha koowaad labaad iyo saddexaad waxaana kaalinta koowaad galay gobolka Bari oo koobka qaaday halka gobolka kale ee Sool kaalinta labaad uu galay kaalinta saddexaad ayaa waxa soo buuxiyay gobolka Mudug kadib markii gobolka Sanaag ciyaartii loo tartamayay ee kaalinta saddexaad ay kaga awood badiyeen isla markaasna ay kaga qaadeen rigooro waxaana lagu guddoonsiiyay halkaas koobka kaalinta saddexaad sidoo kale waxa halka bilado lagu guddoonsiiyay ciyaartoyda sida ay u kala ciyaare wanaagsanayeen waxaana goolhayaasha ku guuleystay goolhayaha gobolka Sool halka ciyaartoyda gobolada oo ku guuleystay
maxamuud timijilic oo ka tirsanaa gobolka Nugaal waxaana guddoonsiiyay biladahani wasiirka isboortiska Puntland oo ammaan balan u jeediyay kooxihii ka qayb qaatay koobka gobolada Puntland loo qabtay. koobka ku soo gabagaboway garoonka Miraha Waare ayaa waxa ka soo qayb galay 8 gobol ee Puntland waxa uu soo baxay semifinalaha gobolada Mudug Bari Sool iyo Sanaag inkastoo finaalkii ugu dambeeyay ay kala guuleysteen labada kooxood ee Bari iyo Sool oo guusha ku raacday gobolka Bari oo koobkan u noqonayo kii afraad. xubno kala duwan ayaa xafladda lagu guddoonsiinayo koobka ka hadlay waxayna ammaan balaarin u jeediyeen dhammaan ciyaartoydii ka qayb qaadatay. waa kan wasiirka wasaaradda isboortiska oo arrimahaasi ka hadlaya. wasiir dowlaha maamulka dowladda Puntland Maxamed Faarax Ciise Gaashaan waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka soo qayb galay xukuumadda ka socday waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciyaartoydu ku dadaalaan inay kor u qaadaan dadaalkooda ku aadan dhanka isboortiska maadaama isboortisku uu yahay mid kaliya ay ka shaqeyn kara nabadgelyada. garoonka ciyaarta ka socoto ay ku sugnaayeen dad boqolaal gaaraya ayaa waxa xubnihii ka soo qayb galay ay ahaayeen kuwa ay ku jireen qaar ka yimid dalka dibadiisa sida Mareykanka iyo waliba qaaradda Yurub.